بسم الله الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. برنامجka saddexaad insha Allah waxaan kaga hadli doonaa maanta sida sababta ku qoran ba sideeba ku xisaabin kartaa taariikhda la filayo taariikhda la qiyaasayo inaad dhasho taariikhda la filayo inaad umusho sideeba ku xisaabsan kartaa adigu gurigaaga jooga yani cidina u baahneen sababta waxaanu sheegnay yani gabadha maalinta ugu horeysa ee uurka yeelato maalinta ugu horeysa ilaa maalinta ay dhalayso inta badan waxa weeyaan waa 40 week weeyaan 40ka week laba week way ka soo hormari kartaa laba weekna way ka dibdhici kartaa waxaanu leeyahay 40ka week laba week way ka hormari kartaa gabadha yani intii 40kii aan la gaarin laba week ka hor haday dhasho gabadhii waa normal still waa normal haddii gabadhii laba week kadib dhacda 42 markii gaadhana still waa normal wixii inta ka dambeeyana waxba qaldan inta waa isla garanay dabeetana marka hore waxa weeyaan formalka uu ku xisaabinayso yani EDD ga ku xisaabinayso waa maalinta xilliga la filayo la qiyaasayo inaad umuleyso ama inaad dhalayso koo waxa ugu muhiimsan inaad ogaato mar walba inaad la socoto yani xilliga cycle-kaaga siduu yahay inta maalin uu yahay waa inaad ogaato xilligii kugu dambeysay maalintii ugu horeysay ee dhiigga ku dhacay haddii kale si kale u sheegana yani waxa weeyaan your first day of the last menstrual cycle-kaaga waa inaad ogaataa last cycle-kaaga ugu dambeeyey yani xilligii dhiigga uu ku dhacayay ee ugu dambeysay maalintii ugu horeysay waa inaad taqaanaa dabeetana maalinta waxaa ka jaraysaa 3 bil ayaa ka jaraysaa dabeetana 7 maalin baad ku daraysaa wala garatay soo maaha formulka wax ku xisaabin doona yani maalintii ugu horeysay ee dhiigii kugu dambeeyay ee kugu dhacay laga jaray 3 bil 7 maalin baad ku daraysaa yani 7 days ku daraysaa 7 days 7 maalin baad ku daraysaa okay tusaale ahaan waxa oranaynaa maanta oo waxay tahay maanta waxay tahay waa 6 November maanta oo 6 November ay ka soo qaadba waa maalintii kugu horeysay ee dhiigii kugu dambeeyay ee kugu dhacay waxa oranaynaa ka soo qaadaynaaba 6 November ay ka soo qaadaynaaba 6 November inay tahay first day of the last month cycle-kaaga inuu yahay ayaa ka soo qaadaynaa dabeeto -3 months 3 bil ayaa gadaal u soconaysaa يعني نوفمبر قال بقى بحس أكتوبر قال بقى بحس سبتمبر 6 بالمركب أغسطس مركب محن نقنصة وحن نقنصة 6 أغسطس نقنصة و6 أغسطس 6 أغسطس مركب وحكو درسة 7 داي بكو درسة 7 days أكو درسة تبغى تمركب وحن نقنصة 6 يتوانك أغسطس بنقنص 16 أغسطس بنقنص 16 أغسطس أي نقنص maalinta la filayo dhasho waa 16 أغسطس 2022 sababtoo imika waxa la joogaa 2021 so 3 bil bagaalo baxaysa yani kow waa first day of the last menstrual cycle ku dhac waa maalintii kugu horeysay dhiigii ugu dambeeyay ku dhacay 3 bil bagaalo baxaysa -3 months gadaal baxaysa 7 days ba ku daraysaa dabeetana sanadka ku xiga ayaa ka dhigaysaa fahamsan tusaale kale fahamsan waxa oranaynaa 10ka June 10ka June ba oranaynaa inuu yahay first day of the last menstrual cycle kaaga inuu yahay 10ka June ba oranaynaa maalintii kugu dambeysay maalintii ugu horeysay dhiigii ugu dambeeyay ee ku dhacay inuu yahay 10ka June dabeetana 3 bil bagaalo baxaysa June maxaa ku xiga waa bisha sanaad May bisha sanaad siiba xuruusa waxa ku xigta bisha April hoos u sii deg magarasa bisha waxa ku xiga bisha 3 March bisha 3 weeyaan bisha 3 marka 10keeda bay noqonaysaa dabeetana waxa ku daraysaa 7 maalin baad ku daraysaa dabeetana marka waxay noqonaysaa 17ka bisha 3 ee March bisha 3 ee March 17keedii 2022
كوي لابد يكون إيه لابد لا تنك لا فيلين على شو لكن حلقة وحويا يعني menstrual cycle كاغا وإنه يهي 28 days menstrual cycle كاغا وإنه يهي 28 days فرمك لو حسابها menstrual cycle كاغا 28 days هدو كبدين يهي maalmaha dheeraadka waad ku daraysaa iminka waxaan ka soo qaadaynaa menstrual cycle kaaga inuu yahay 30 maalin inuu yahay menstrual cycle kaaga inuu yahay yani bil 30kii maalinba inuu dhiig ugu dhaco ka soo qaada sidii laatigi maxay dheer tahay 2 maalin baa dheer tahay labada maalin baa gadaal kaga dir doonta labada maalin baa ka dir doonta 15 ka noqonaysa tan kale tan 2 maalin waxay noqonaysaa 19 maalin bay noqonaysaa ka soo qaadba menstrual cycle kaaga waxa weeyaan 26 menstrual cycle kaaga xilliga uu dhiig ku dhaco kasoo qaad waxa weeyaan waa 26 maxaa meeshii ka maqan 2 maalin baa ka maqan 2 maalin baa ka jiraysan fahamsa 2 maalin baa ka jiraysan -2 days baa oranaysa dabeetana 11 August bay noqonaysaa -2 days marka xagga ka jirtana waxay noqonaysaa 15 March bay noqonaysaa that's it yani waa inta weeyaan fahamsa xilliga ugu fiican ee wax lagu xisaabiyo ama garasade mo accurate la ma si fiican u saxan waa ultrasound waliba wiiga كوي تبنات يسدح تبنات وحلقة وقف عن تاعي ultrasound مجرسة ده لقوا سمين كري عنده لقياس كري حلو إيمانيو وحنقول ملنا يا رجيني إن شاء الله من الفانتين هدي الفان ويسوي دي كتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.